madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa xusay sida isku bedeshay taariikhda hore ee Itoobiya lagu yaqaan una noqotay dal gacan qabta walaalaha Afrikaanka ee dhibaatoonaya iyagoo shacabka Itoobiyaanka ay dhigooga huraan walaalaha Soomaaliya taariikhdii hore u jirtay ee sooyaalka ahayd ee laga hadli jiray ee la isku qoqin jiray ee Itoobiya iyo kan iyo maxay iyo hadda xagee martay yani darbigaasi uu burburay Soomaa waxaan isleeyahay waa taariikh la soo dhaafay oo burburtay oo maanta cid aanu miciin badaynahay tahay dawladaha dariskanahay oo leenahay war Kenya iyo soo Itoobiya iyo Djibouti iyo xagee jirtaa waa taariikh u baahan in la ogaado waxay ahayd iyo waxay ku salaysnayd maanta aan u garanaynaa haddaan shalay isla wada burburi lahayn maxay noo iman lahaa wax badan oo maanta iskuulo u soo dirsaneen iyo wax badan oo nala qabanaysaan iyo ciidan badan oo idinka heleen iyo calaf wada midna lama heleen sidaa daraadeed aad iyo aad baan u bogaadinayaa maanta inay dadku wada waxgarad yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xukuumadda deegaanka iyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar Boogo mahad celiyay siday kor ugu qaadeen miiqaamka deegaanka kana dalbaday in wixii khibradaha ay ku kordhiyaan aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar iyo hoggaankiisa ku dayashada mudan iyo maanta maqaamka deegaankan uu gaaray waxaan leeyahay Cabdi oo meeshaan hore uga sii socdo hana ku koobnaan in talada wax naga siiyo oo na soo gaarsiiyo wixii wax tareen idinka baahan